dhammaantiinaba inta ku xiran beeshka ST11 soo dhawaada muuqaalkani ku soo dhawaada muuqaalkan insha Allah ma soo gelin dooni wax hordac ah. Muuqaalkan sida ugu magacarnay sida magaciisu uu yahay muuqaalkan Sabti walba Caweys Part 1 ayaa maanta qaadanaynaa. Maanta waxay noo tahay Sabti. Barnaamijkan wuxuu soo galayaa Sabti walba. Magaciisuna waxaa la yiraahdaa Sabti walba Caweys. Barnaamijkan Sabti walba Caweys Ramadaankii ka hor ayuu soo jiray. Ramadaanka awgiisa barnaamijka wuu baaqday. Haddana dib ayaan u soo celinay inkastoo Ramadaan laga baxay ee tahay maalmo caadi ah. Barnaamijkeeni Sabti walba Caweys dib ayaan u soo celinay insha Allah. Fadlan muuqaalkan share dheh. Waa mahadsantahay muuqaalkan Ilaahay ha ku barakeeye. Fartana Ilaahay kaama gooyin muuqaalkan share dheh. Muuqaalka inaad share dhahdid waa ay kugu wanaagsan tahay anina waa ay ii wanaagsan tahay. Barnaamijkeena Sabti walba Caweys waa ku sheekeysanaynaa. Marka hore koobkaada shaaha soo qaado agtaaga dhigo kuna soo dhawaada barnaamijkeena Sabti walba Caweys Part 1kiisa ayaan bilaabaynaa maanta insha Allah. Marka hore walaysa amran koobkaaga shaaha soo qaado is agdhig si aad ula socotid barnaamijka Sabti walba Caweys. barnaamijkeena maanta waxa aan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena Caweys waxaa loo talagalay in lagu soo qaato qisooyinka, sheekooyinka iyo maxaa la dhihi jiray hadalka iyo dhiirigelinta. Maanta barnaamijkeena marka waxa aan ku soo qaadanaynaa dhiirigelinta. Haddii rabtid anaga wax walba waa soo qaadanaynaa insha Allah. Sabti waxaa soo qaadanaynaa hadaan sheekooyin qusul leh qisooyin diini ah, heeso, nashiidooyin. Laakiin maanta waxaan soo qaadanaynaa dhiirigelin ayaa soo qaadanaynaa. Asxaabta jecel dhiirigelinta ku soo dhawaada muuqaalkan. Waa barnaamijkeena Sabti walba Caweys. Dhiirigelinta waxay ku saabsan tahay walaal waxa ogaataa mar walba ay qoraxda soo baxdo waxa ay tahay ay ku tahay maalin cusub ee ka faa'iideyso maalintaada cusub. Dhiirigelintan maxay kuu sheegaysaa? Dhiirigelintan waxa ay kuu sheegaysaa waxaa jiro dad murugaysan, waxaa jiro dad dhibaato haysato. Waxay ku tilmaamaysaa walaal adiga murugtaada maalin walba murugoon doontid, laakiin waxaa jirto maalin aad farxi doonto. Farxadda waxaa loola jeedaa qoraxda. Nashiidada micnaheedu waa saas. Walaal adiga murugoon doontid ee waxaa jiri doonto maalin aad farxi doontid. Haddii aan si kale u dhahana waxay tahay sida ay maalin walbo ay mugdi u tahay sida habeenkii uu mugdi u yahay ayay maalintaadana qoraxda u soo baxaa. Waa dhiirigelinta koowaad ee ku soo qaadanayno barnaamijkeeni. Dhiirigelinta labaad aan ku soo qaadanayno barnaamijkeeni waxa ay tahay dhiirigelinta labaad si fiican dhagahaaga u fur. Dhiirigelinta labaad aan soo qaadanayno waxay tahay maalin walbo is xisaabi walaal. Is xisaabi waxa iska xisaabisaa noloshaadii hore wixii ku soo maray. Is xisaabi waxa aad dambi gashay. Is xisaabi Soomaalidu waxay maamaha ku dhihi jirtay haddii aad is xisaabin weydo waa lagu xisaabin. Haddii aad is xisaabin weydo waa lagu xisaabin. Waa maamaha haddii is xisaabin weydo waa lagu xisaabin. Walaal adiga is xisaabi. Maxaa ka faa'iideynaa dhiirigelintaas? Dhiirigelintaas micnaheedu waxay tahay adiga wax walbo ha iska sameynin ee ka fiirso waxa aad sameynaysid. Wax walbo ha iska sameynin ee ka fiirso waxa aad sameynaysid. Maanta meeshaas ayaa ku soo gagabeynay barnaamijkeena Sabti walba Caweys aan ku soo qaadanay dhiirigelinta. insha Allah Sabtida dambe barnaamijkayga ku dhaafin. Waxaan dhiga tagayaa sidaas iyo amaano Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan ha ilmaamin muuqaalka in walaalahaada u share gareysid. Fadlan muuqaalkan share dheh. Wassalaamu calaykum.